laba qof ayaa ku geeriyooday halka 8 askarina ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen gaari cabdibilaa iyo gaari basa. Shilkan ayaa ka dhacay buunda jiifka laga soo galo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Labada qof ee geeriyooday ayaa ahaa dadkii watay gaariga baska ah sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan. Dhinaca kale 8 askari ee dhaawacantay ayaa waxa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidanka BMBF kuwaasi oo saarnaa gaariga cabdibilaa ee ay gaariga baska isku dhaceen. Shilkan ayaa waxa la sheegay dhaawacaasi inuu qaybtoodu halis yahay halka sidoo kalena kuwa kale ay markaasi fudud yihiin. Laamaha ammaanka gaar ahaan ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka Bari ayaan arrintan weli ka hadlin, waxaase la sheegay inay halkaasi gaadheen isla markaasina ay baaritaan wadaan. Dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda Puntland ay soo saartay war ku saabsan arrimaha wadooyinka iyo weliba sidoo kale socodka ay darawaladu baabuurta ku wadaan, balse lama oga in sababta ka dambeysay shilka halkaasi ka dhacay ee markaasi sababay labada qof inay ku geeriyoodaan 8 askarina ay ku dhaawacmaan. Labada gaari ee isku dhacay ayaa mid waxa uu ahaa bas, midka kalena waxa uu ahaa gaari ay leeyihiin ciidanka BMBF kaasi oo ay saarnaayeen askar badan oo 8 kamid ah ay dhaawacmeen. Xukuumadda Puntland ayaa muddooyinkii dambe ku dadaalaysay sidii ay u yareyn lahayd shilalka baabuurta ee ka dhaca wadooyinka xiriiriya gobolada Puntland, kaasi oo inta badan ay mas'uul ka yihiin darawalada gawaarida wada oo xawaare sare ku soconaya. Hase yeeshee xukuumaddu ay sheegtay in arrintaasi si ay uga hortagto ay xakameyn doonto, soona saartay warqad ku saabsaneyd arrimahaasi oo la xiriirtay marista wadooyinka iyo weliba sidoo kale in safarada marka lagu socdo aan lagu socon xawaare dheereeya kaasi oo sababi kara shilal kala duwan sida shilka haatan ka dhacay magaalada Boosaaso irida laga galo. Siciid Xasan Faarax KNN wararka Puntland. saaxiib aabbaha kula hadlaya wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys waliba waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 7 sano isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa hadda Soomaali Suudaneys Hospital saaxiibka bulshada SSH